السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ولا لدي دقالقة إيميل كستبا أدونك دعالي سوكتشوغو وإن سلامية كسر دواذا نعيم برينك إيو channel كذا aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin sida wanaagsan ee sharafta iyo cisiga leh ee aad ii follow garaysaan ee subscribe-ka igu saartaan ee ma aragtay fiidiyoyadayda kuwa nuxur kale iyo kuwa kaleba aad sii faafisaan aad iyo aad baan idinku mahadcelinaya waxa ogaataan abaalba idinku haya abaal la'aantaas marnaba ma aha intaas markaan ka imaado guys maanta waxaan halkan u soo galay arrin jirkayga dhanka cisay oo aan la dubaaxiyay ayaan halkan soo galay sida aad u ogtihiin waxa jirtay gabadh shalay gabadh Soomaaliyeed gabadh kastaba ma aha gabadh kastaba aniga waxbay gama galin gabadh Soomaaliyeed oo shalayto life lagaga qaatay caruurteedii ilmo yar oo dhashay oo ugu weynaan 3 bilood jiro laga qaatay oo yar oo ku jiro bahalkeena maaragtay marka baabuurta la saarayo maaragtay bahalkeena caruurta lagu fariisiyo maalin walba waxaynu maqalnaa oo aynu dhageheena ku maqalnaa hebel baa caruur laga qaata waxaas baa la yiri saas baa la yeela iyo hooyo cabanaysa baynu aragnaa ama maqalnaa oo la caruurti baa la iga qaata haddaba inagu Soomaali ahaan dadka caruurta laga qaato ama hooyinka caruurta laga qaato sidee baynu u soo dhaweynaa si kastaba ha looga qaatay Soomaali haddaynu nahay waynu judge garaynaa waxay ka mid tahay calashaan waynu takoornaa waynu dhaliilnaa waxyaabo fara badan oo aan loo baahnayn oo bini'aadanimada ka baxsan ayaynu ku sheegnaa gabadha Soomaaliyeed ama aabaha Soomaaliyeed ama waalidka laga qaatay caruurtooda intaas oo dhan marka ay sameeyaan waxa kale oo jirto weligay noloshayda kole aniga naciimahan meel kasta marayo ma arag ilmo yar oo life loo qaadanayo shalay marka arrinkaas wuxuu igu noqday argagixiso marka sheekooyinka la sheegayo ee qofkii caruurta laga qaatay uu sheegayo calashaan ilaahay iyaba og hooyada ama waalidkaas ilmahooda looga qaatay laakiin inagu ma ogaan karno marnaba xaqiiqda iyaga ayaan ka maqlaynaa iyaga ayaa inoo sheegaya dhahaya sida ay saasa laga qaatay inaga marka arrinkeenu muxuu yahay waa inaynu qofka kale sidoo trust siino oo aynu calashaan aamino oo rumaysano waxa uu inoo sheegayo because anigu naciimahan markaan war sheegayo waxaan rabaa in la rumaysto waxaan rabaa inaanan dadka record garaynin isoo wacaya ee bini'aadanka ah oo markan hal qof idhaahdo dabadna aan record gareeyo sida dadka qaarkood ay sameeyaan ee aan wax kasta sidaan soo sheegay waxa aan rabaa in la rumaysto oo aanan qof walba record garaynin oo aanan sameeynin wax bini'aadanimada iyo islaamnimada ka baxsan so haddaan rabo in la rumaysto hooyadan masaakiinta ah ee ilmaha laga qaatay of course storyga ay sheegto waa rumaysanaya hadday ku tiraasa ay saasa ilmaha laga qaatay waa rumaysanaya haddaba maadaama aynaan life u arkin ee aynu rumaysan jirnay hooyooyinku waxay ina dhahaan oo dhibta la dareemi jirnay maanta waxa toos idinku timi oo life aad u daawanayseen dabcasar fiidiyowgii uu life-ka ugu jiray shalayto wallaahi oo bilaahi oo tallaahi waxa ay qabatay I don't know si aan ahaa laakiin Soomaalinimo waxa sariya ka saaro because waxaynu noqonay dad daciifnimo meesha aniga iga muuqatay bal walaalayaalow fiidiyowgii in yar baan ka soo gooyay dhego caafimaad qaba oo qabyaaladi ka maqan tahay oo ay ka maqan tahay xaasidnimo oo ay ka maqan tahay qurunimo ku dhageysta kuna arka insha Allah bal fiidiyowgii ayaan idin duubaya dabcasar uu shalay soo galay waa kana
adeer waatana walaalayaal gabadhan miskiinta ah oo hooyada ah ayaa ilmahan oo quruxda badan ayaa gaaladii waa u taagan tahay hadda laga qaadanayaa marka duceeye u soo duceeyay gabadhan Soomaaliyeed gaaladii ka qaadan lahayd waa kuwaana halkaan ay joogaan gaalada qaadanaysa siduu dabcasar inoogu tusaayo lifeka waa naag Mexican ah ama calashan ma ahan naag cadaan ah oo ma aragtay American ah ma ahan waa naag isku jir ah iyo naag madow oo African American ah iyo naag kale oo ma aragtay Mexican ama dadka isku jirka ah calashan kulay uun ma ahan dadka Americanka bal ila daawada waan halkaan taagay calayhi salaam marka u soo duceey يا قالت كقادن الله waa kuwana hooyada laga qaadan ilmaheedu waa tan caanaheedu sanaysa waa ilmo qurux badan ma sha Allah hooyaduna waa tan ilmaheedu laga qaadanayo u duceeya ilaahay inuu sharkooda ka badbaadiyo aamin marka ilmahan gaaladii qaadan lahayd ayaa u taagan ilaahay ha badbaadiyo fadlan waxaan ka codsanaynaa qaybaha kala duwan ee jaaliyada live buu ku jira Facebook live buu ku jira inanta uu wareysanayo ilmaha laga qaadanayo hooyada iyada ka raaliya iyada tiri wareyso dhageysta fadlan culama diinka odayaasha dhaqanka ganacsatada hooyadan Soomaaliyeed inay u gargaaraan oo u hiliyaan oo ilmahan Soomaaliyeed oo gaaladu ay qaadanayso ay badbaadiyaan walaalay magaca حمدي ولا إلهي إلمها كوي حفظي ما حيكون هايستان ولا لا هاي marka boolis ay ku soo deena marka boolis kara waxa ku dhahay magaalada adigu ma keenin hay inta way hawl ilmaha bay marka kuwan ma waa children service ku soo diray marka ma maxkamad waraaqa ka haystaan waxay tiri dad aan wada deganeen ba isfahmi weyno iyaga booliska ii wacay oo booliska igu soo diray inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un ban leeyahay naciima ahaan you know why because of wax laga naxo waa argagixiso week hor waxaan ka hadlay dadka Soomaalida ee isdacweeya waa waxyaabo jira Snapchat-ka ayaa la igu soo sheegay hooyo Sweden joogtay hooyo Holland joogtay hooyo Denmark joogtay in dhamaantood la wada dacweeyay qaar America jooga la dacweeyay oo sida isaga daba wareegayeen kabkoodii cirta loo tuur korka loo tuuray ma daawateen videogayga waa video aan maan dhawta soo galiyay arabkaygi ba sii qoyan kelmadii ba ka sii qoyan maan dhaweed bay hayd kelmadii ba ka sii qoyan waana tana waa la dacweeyay haddaba hal su'aal ayaan rabaa inaan dadka weydiiyo marka qof bini aadana saa loo maxaa la dhahaa loo dacweynayo talo qofkaas soo ku seexanaya gabadhani gabadh dhibaato ka muuqato oo duruuf ka muuqato weeyaan duruuf ayaa ka muuqata sida ay tahayna waa hooyo ilmaheedii bay rabtaa inay wax siisato aanay u qasaysaa waxay sameynaysaa maxaa la yiraahdaa waxbay siinaysaa iyada oo og inuu cadow ku hareereysan yahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un waa hooyo yaa rabbal caalamiin ila dhageysta هاي waxay soo diray gabadhii guriga lahayd Soomaaliya gabadh lahayd هاي guriga lahayd هاي boolis wacday booliska marka iyo soo diray marka ayagu hadda yani yaa sharciga u siiyay ilmaha qaataan ma sharci ma rabaan iyaga waxay rabaan gabadhii guriga lahayd ee Soomaaliyeed ayaa booliska wacday iyagana ay soo diray ma waxaanan markaa oranin baa taw yaa Soomaali iga saara xaq ba u leeyahay inaan dhaho Soomaaliya iga saara Soomaali waa tiis xambaari jirtay waa tiis sooriyeyn jirtay waa tiis soo dhaweyn jirtay waa tiis saxanka cuntada maartay isla gelin jirtay gacanta maantana caruurteeni ayaynu banaanka dhigaynaa oo booliis u wacaynaa oo meel lagaaga xoog badan yahay ayaynu ku sii deynaynaa ilmaheeni waa inkaar dhageysta waa gartay marka ilaahay horta ku gargaaro jaaliyadana hadda waxaan ka codsanaynaa gabadhan Soomaaliyeed oo ilmaheedii laga qaadanayo gaaladii ka qaadan lahayn ay halkan taagan yihiin
inay u gargaaraan oo haddii ilaahay ku idmahayo oo kuwaas halkaas taagan gaaladii qaadan lahayd marka waxaa idinla quman inaad u gargaartaan oo meesha ya guri baa siinaysaa yaa yidhi guri baan siinaya maadaa yidhi maya ninkaanaa yidhi ma caawinaysaan gabadha ilmahaas hooya u kaca gabadhan ha loo kaco khayr allah insiiyo soomaaliyey muslimow gabadhan soomaaliyeed ha la badbaadiyo adeer teleefonkaaga sheeg dadka caalamka ya war gabadh teleefonkaaga hore sheeg waad soo furan ma taxasuustaa se number ma lihi inta dhanba waa khalkhalsan tahay nambarkeedi bay istiri sheeg caalashan booliiska waa soo socday waa kanay waa waray ka kacay dhegeysta adeer allah kuu gargaaro magac yaa lagaas maya gabadha in lacag loo aruuriyo ma rabto naagta tira waayo waxay ku tiri ma rabto maya in lagu garab istaago looyarada wax kasta maya hadday ku dhibaanba dad maya waa lagu hiilin dadkaagii baa kula soo xiriiray Soomaali weyn jaaliyada waa lagu garab istaagay adeer macaan waa adeer dhiigaaga iyo dhacankaaga baa adeer macaan qurbaa waa lagu jabay waxna lagu maahayo halkii aynu iska rifaynay waxaynu iska rifaynay baala aynu iskaga rifaynay dalkeenii xabad bay naga keentay Yurub baynu nimi Mareykanka baynu nimi meel kasta aynu nimi kaka inagii baa isdaba taagan wali ummadda kale ma daba galno ummadda kale isma daba gasho war maxay inaga iskeen daba dhigay inaga maxaa iskeen daba dhigay had iyo habeen ee aynu isu cunaynaa gabadha yar ee masaakiinta ee life ku jirto hadda waxa la waa video la isu keenay no waad arkayseen wuxuu joogaa wadaadku wuxuu joogaa suuqa Soomaalida meesha Soomaalida buuxdo Mareykanka weeye meesha ka dhacday waa hooyadu Mareykanka degantaa hooyada of course traumatizing ku dhacay waxba ma kala oga haddana sida ay tahay waa hooyo ilmaha calooshiisa ka fikiraysa si ay caana u siin lahayd bal ilmaha yar ugu sameyn lahayd ayay wali ka fikiraysaa damiir ma lahan miyaa dadka ku hareeraysan inay tay la rooraan maxay guri u geyn waayeen oo maxay u geynayaan of course waaba laga soo saaray gurigee labadan shooshale meesha taagan may dabada kaga dhacaan iska eriyaan meesha Soomaaliya ka buuxday dadaan get out carruurteeda naga qaadanay maxay wadnayaan waaba u ceene guys waxaan rabaa clip halkana of course oo uu dabca sar gacantiisa raba inuu action ku sameeyo of course baabuurkiisiibu u tagay banaanku u baxay baabuurkiisiibu u tagay $8,000 ayuu ka soo saaray $8,000 buu ka soo saaray bal ogaada isagoo halkan waa kana clipka ila daawada waa kana silay ku idmahay gaargayga aabo la abeen ku yahay oh gaargayga where's my car yeah it is okay it is نفي مال بحضان قبل المعنى ما أنتو كلا جهاد كانوا كلا العب احتري سواتنا العب $8,000 $10,000 اوكي فرشو قرن لا gabadhii wali sidii loogu maran yahay yimi inuu haliyahay waxa ku garanay booliskii buu la hadlay booliskii markii hore la bax uu la hadlay wuxuu leeyahay ana kafaala qaaday reerkan dhageysta excuse me sir this $8,000 I'm taking care for her yeah okay. But I'm taking care her home, her food, her shelter. gurigeeda iyo ma aragtay cuntadeeda aniga ayaa keer siinaya buu yiri
$8,000 waa u hayaa waa loo diiday may baa la yiri may get out baa la yiri ka bax meesha okay waa la iga diiday lacagtii $8,000 is here bal hadeega علشان وحن هلك أصوب بندقة وحن أرنكاس كليب كأصوب قاتي ومهم علشان إسقى he tried to save her he tried to علشان عروضة يو قبضنا يلمها بين سقوقاته لكن والودي ده أفلي بحبها كترتا no لما قاعدنا no ولا تقالمي بدن بأسكت دي إني ما عرفتي إريدان إسقى يراحان تلفون كدمي تلفون كدم ببسان لكن ودي ده وهذا ساقبري علمي لقى قاعدة وأوتشدين وعلى قاعدة علمي ولا قاطي علمي ولا قاطي علمي ولا قاطي علمي ولا قاطي Hey ma'am, what reason are you taking a baby? علمي ولا قاطي علمي ولا قاطي idinka buuqa iska daaya Soomaalida علمي ولا قاطي الصومال على السلام علمي ولا قاطي هذا Hello. Hey, she knows me. Why she ignoring me? Listen, no, dude, get away. Do you really want their family's business on the air? This is my family. Do you? No, they're not. Yeah, she's my family. This is my family. This is my family. This is my family. ilmi waad u jeedin naag Mexicaana korka u ridatay nobody kala hadli maayo waa la wada tuban yahay hal nin oo booliisa iyo baa ka xayuubsaday intii hal qof oo ilmaha qariya oo gabadha intaan boolisku imaanin qariya waa la waayay naagahana caydsada waa la waayay Yes, this is my family. wuxuu yiri miyaad rabtaa familigan inuu problemkooda banaanka u soo baxo booliska baa ku yiri haa buu yiri waa familigaygi buu yiri waa familigaygi buu yiri gabadhaas waa familigaygi wala dabcasar inuu gob yahay ku soco Hey, she knows me. Why she ignoring me? Listen, no, dude, get away. Do you really want their family's business on the air? This is my family. Do you? No, they're not. Yeah, she's my family. This is my family. This is my family. This is my family. That's her sister. That's her sister. Okay, father, man. Yes, this is my family. Yes, this is our baby. This is our child. That's not fair. That's not right. That's not justice. This is injustice. الحمى لا إله إلا الله محمد رسول الله هل كان كأويان حالي كسيحن واي وهل كان دقا هو يدي أرك وصنبان عبي يا بيور نسا دقيستا What the police officer is doing is wrong. It's not right. The wall. They are separating the mom from her child. That is not right. The child in need is breastfeeding. Yes. Yes. This is not right. This is not right. Yes. This is not right. This is not right. This is not right. Wall. Columbus. This is not right. This is not right. This is injustice. This is injustice. Police officer using force to separate mom from her child. This is not right. The wall. This is not right. This is not right. This is not right. This is not right.
That's really very sad. That is really breaking point. That is really very sad. Somalia, that is fucking sad. والله قبلنا متبادية محاسوق إنسان إسماعيل مع قبلها كاري المان قبلنا نقبتها متبادية المية هذه لقيقاتي قبلنا متبادية حيها سيدين قبلتن ازدج إن هذا ازدج اوكي كم داون ها عبي سنها عبي سنها عبي ilmahooday ka helayaan bay tiri oh my god ilmahooday ka helayaan bay tiri iyaga ayaa saa ii galay idinka ayaa saa ii galay waa family ku sheeg futada alla ka gooye ilmahooday ka helayaan of course hooyada naas ku da'aayo hooyada naas ku da'aayo naaskeedii iyadoo ilmaheedii siinaysa laga xayuubiyey loo xoog sheegtay maanta qofkii waxaa sameeyey dadkii waxaa sameeyey ka dambeeyey ilmahooday ka helayaan of course ilmahooday ka helayaan bay tiri sunha isdaji ilmii waa fiican yihiin abay haye ازدجي علمي وفيعيه waxaa taa naxdin uga daran markii adduunka dhamaaday nin xoog weyn oo isu haysta inuu wax wanaagsan samaynayo ayaa dabcasar telefoonkiisa jabin gaadhay dabcasar oo reality-ga joogta soo gudbinaya waxa reality-ga ee jooga ayuu rabay inuu dambabaso ama qabiil ku dambabaso ama ha ku dambabaso maxaa la yiraahdaa Soomaali ahaan ama wax kale ha ku dambabaso wuxuu ku dambabasaayay dambigaas inaanu banaanka u soo bixin fiiriye heetab asar waxa lagu sameeyay Don't touch my phone. Don't touch kill kala ku dhalay. Don't touch my phone. You are criminal. You're criminal. You hit me. You're criminal. يا صق بطارية قد ما يصق أردمين ما ينفع تصع وريا قبلها نجي فولها هي إيك هذه بطارية انقشتي تواسيس وسك عليه ياس وهيد قري ما حشان عيو ونين كوين ونين قضية ريالته قصو قد بنيا وكاميراتنا وفيدا Soomaaliye ilaahay baan idin ku dhaariyay ceebta iyo nacdirta ka dhacday ma jeedin xishood ma jiro xishood waa dhamaado iyagana jaajuusay markii hore Soomaa haddana waa wadan Soomaa xishood ma waxa isla dhaha xishood lama dhaho no jawaasiis yaa ilmaha nagi ka bayc mushtarahay dal iyo dibadba jawaasiis ba u shaqeynaya booliskii يا قاردي بين قبلها نجي خوف صنهاية هذا يوالله هذا سنع بس أيها مسؤولك أمريكا مسؤولك قبل أصدق عاوز سنعبت عشان حيوان بلاي أنا كنت أف dirty place guys وذو كذا ما أهان فيديو لصوناش ناشي ما أهان فيديو لصو دوبي وفيديو ولايف كتري وعريه وبسليه Soomaaliye wadu jeedaan Soomaaliye Yurub wax kaaga soo horeeya ma jiraan jaajuusin baa kaaga soo horeysa Soomaali la dhaho Soomaali intaad ka fogaan karto ka fogow waxaad oran doontaa Naciima Faalisamiya saan soo sheegay fiidiyowga hore ee ku jira halka ee aan duubay miyaan ogayn sheekadana dhacayso ma ogayn laakiin waxyaabo la soo gudbinayay iyo dhacdooyinka la soo gudbinayay exactly kala aha gabadhii maxay tiri gabadheena masaakinta maxay tiri caruurtiinaad ka heleysaan yes caruurtooda ka helayaan sidee baad ku seexan kartaa
oo ku soo toosi kartaa oo caruur naas ku siisan kartaa oo caruurku intaad gurigaaga waa ii hurdaane gabadhaa yar ee masaakiinta ee iyadoo ilmaheedii naas ka siisanaysa sabreyd laga dhigay idinkaa ka mas-uulaha qofkaasi siduu u seexanayaa damiir darana war damiir darana war yaalaheen midda kale gabadhu intay meesha fadhido laba naagood oo keliya jooga inta labada naagood buf laga siiyo la eriyo la yidhahdo get out oo na dhaafa ma caruurta inta la kaxeeyo gabadha iyo ilmaha guri la geeyo oo haatan situationka gabadha loogu imaanaya mu ahaado situation degan iyadoo degan oo guri fadhido ilmihi isaga cayaarayo alxamdulillah gabadhii oo diriceed iska xiran ma loo yimaado situationka ma loogu yimaado dee looguma imaanayo because gabadhii suuqaa bay joogtahay midda kale ee aan mar walba isweydiiya waxa waaye yaa booliiska yaa calaashaan kuwan u sheegay gabadhu meeshay joogto ha loo waco booliiska laakiin yaa sheegay meesha ay joogto Soomaali kala sheegtay Sooma tomorrow waxay ogaan doonaan kuwaasi inay taasoo kale caruurtooda ka heli doonaan gabadhaaba tiri waa runteeda anaga ku raacsan ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka baryayaa gabadha miskiinta ilaahay inuu ilmaheedii mar labaad kula siiyo oo u soo celiyo waa gabadh yar Soomaaliyeed waa gabadh yar qurux badan waa gabadh yar ilmo yar qurux badan haysata waa loo quuri laay waa quuri waa meesha ka dhacay waxaa laga yaabaa quruxdeeda loo diidan yahay kartideeda loo diidan yahay fariidnimadeeda loo diidan yahay maantana halkaas ay maraysaa ilaahay baan idin ku dhaariyay guys u soo duceeya please ducada ku kaalmeeya meel xiniyaha la idin qabanaya joogtaan oo aydan xoog ku lahayn because of qaxoonti baan nahay dalkeeni baan ka soo qaxnay dad qaxoonti oo masaakiina baan nahay haydin ka saarto de waa taas Yuruban aaday meel kanaan aaday Soomaaliyan ka ag dhawaanay gabadhii meel guri dad heerkii guri laga siiyo meel Soomaalidu ka baxsan tahay alla Soomaali baan rabaa inaan ag dego Soomaalidu waa santa hargaa ka fogow walaalayaalow please ducada ku soo kaalmeeya waxaynu maqli jirnay qadba caruur laga qaatay kan baa laga reality baad joogtaan waabad ogtihiin waabad la joogtaan waabad aragtaan waabad u jeedaan life weeyaan horta dabacasarna halkan waan ka salaamayaa aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay waxyaabaha Soomaalida ku dhibaataynaya inuu noo soo gudbiyo boqolkiiba boqol waa haliyay waa ninka $8,000 ma aragtay jeebkiisa ka soo saaray halka maanta dhigay ee laga diiday inuu reerkii ku qabto ama wax ku siiyo waa ninka soo gudbiya runta thank you so much baan leeyahay arrinkaas arrin wanaagsan buu ahaa oo aad Soomaalida indhaha u furayso aan maalin walba anaga halkan soo fadhinano war iska ilaaliya dadka idin basaasa dadka basaasa xaqii jooga jayada haya maanta waa ka saxee soo dabcasar waa haliyay run buu soo gudbiyay waxyaabaha Soomaalida lagu hayo soo gudbiyay dhacdooyinka soo gudbiyay aad buu u mahadsan yahay boqolkiiba boqol wallahi billahi dabcasar waxaan leeyahay thank you jiro joog so guys aad baad u mahadsantihiin dhamaantiin waa idin jecelahay please share gareey videogan gaarsiya meel walba gabadhaasna ducada si loogu soo koobo share gareeya ducada lagu soo koobe aad baad u mahadsantihiin waxaan idin leeyahay mar walba jira oo jooga please aan isku duubnaano cid inooma maqna ceelna inooma qodna inaga basle please aan isku duubnaano guys intaadan channelkayga ka bixin waxyaabo fara badan baan ku soo gudbiyaa iscaateyntii baa kamida waxyaabo fara badan baa kamida please subscribe ka saar notification button ka taabo gambaleelka si oo ma aragtay videoyada aan duubayo dhan ay kugu soo baxaan aad baad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ciao bye